socdaalkii Samadoon muddadii koobneed ee uu xafiiska joogay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu wada isugu geeyay xaqiijinta qodobo muhiim ah oo doorashada amniga dib u heshiisiintii adeegyada bulshada ugu muhiimsan yihiin si uu xuquuqaal ugu noqdo arrimaha hortaminta leh una dhageysto bulshada ayuu ra'iisul wasaaruhu galay safarro uu ku marayo dowlad goboleedyada dalka safarkaas lugtiisii koowaad ayuu 22 November ku gaaray Koonfur Galbeed Soomaaliya afar cisho oo ku sugnaa Baydhabo waxa uu kulamo la qaatay maamulka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo uu kala hadlay arrimaha amniga doorashooyinka nabadeynta la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta adeegyada bulshada waxa uu furay mashaariic waxtar leh oo dawladdu ka hirgelisay Koonfur Galbeed sida xarumo waxbarasho caafimaad iyo ceelbiyoodyo isagoo dhagax dhigay mashaariic hor leh oo bulshadu si weyn uga faa'iideysan doonto sida isbitaalka xaafadda Barwaaqo xarunta xanaanada caruurta macadka barashada diinta xarumo wasaaradeed iyo adeegyo kale oo muhiim ah waxa uu booqday oo hawsha qaranka ay u hayaan ku dhiirigeliyay ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira nabaddiidka dalkan cid aan idinka ahayn uma maqno cid aan idinka ahayn ma difaacayso cid aan idinka ahayn front ama ma joogto xuduudaha shacabka Soomaaliyeed geesinimadiina awoodiina muruqiina ayuu ku seexdaa wayna idin ogyihiin sharafta aad leedihiin iyo karaamada oo ah inaad cadawga ka difaacdaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo shacabka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ciidanka jooga igaarkiisana waxaan leeyahay hambalyo iyo kuwa banaanka kala jiro waa ku faraxsanahay sida geesinimada leh oo aad u difaaciysaan dalkiina walaalayaal rag iyo dumar waxaan idin leeyahay hambalyo qalbigeena waa idinka warhayaa waxa aad dib iyo u maraysaan qorraxda iyo waa difaaca dalka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin ilaahay garabkiina ha galo annagana garabkiina ayaan taaganahay har iyo habeen aadin ku seexanaynaa idinkana nagu seexda aad ayaa u mahadsantihiin bulshada Koonfur Galbeedna waxa uu kula dardaarmay isku duubni iyo inay nabadda ka shaqeeyaan dardaarinkaygu waa in aad sii xoojisaan iskaashigiina nabadgelyada ka shaqeysaan la dagaalantaan nabaddiidka argagixisada ah maamulkiinana la shaqeysaan oo aad garab siisaan halku dhegaygu waa hadal yar iyo howl badan idinkana ku dadaala ammaanka iyo xasiloonida nabada naas la nuuga leh 11 December ayuu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble u socdaalay magaalada Garowe xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa si weyn u soo dhaweeyay madaxda iyo shacabka Puntland halkaas oo ay ka bilowdeen wada xaajood iyo kulamo uu injineer Rooble la yeeshay madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Karaash kulamadan ayaa lagu falanqeeyay xaaladaha dalka ee xilligan kala guurka wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo sidii hore loogu sii amaqaadi lahaa heshiisyadii doorashooyinka laga gaaray waxaan aad uga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa howlihii badnaa ee ka qabteen Puntland muddadii ay joogeen oo runtii wasiiradii la socday ee dhammaan wasaaradihii dhigooda halka joogay wada shaqooyinkii hore ay wada wadeen iyo shaqooyin cusub oo runtii ay isla qorsheeyeen sida u socon lahayd ka wada qabtay fursad badan aan u helnay inaan xaaladda waddanka iyo waddanka siduu yahay iska wareysano ra'iisul wasaaraha ayaa intii uu joogay magaalada Garowe u kurgalayay arrimaha u baahan in deegaanada Puntland gacan laga siiyo sida dhaqaalaha bulshada iyo horumarka dhinacyadaasi laga sameeyay isagoo kulamo la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan kuwaasoo la isku dhaafsaday talooyin waxtar u leh dalka iyo sidii odayaasha iyo bulshada rayidka u qaadan lahaayeen doorka kaga aadan horumarka iyo dib u heshiisiinta dalka kulankan wuxuu ahaa kulan bulshada rayidka ah ee Puntland ee la kulantay ra'iisul wasaaraha kulan aad u qiimo badan qalbi furan si fiican oo noogu waramay annaguna dareenkan qabna oo xilliga doorashada Soomaaliya iyo walaaca haya bulshada rayidka ahayd
si fiican soo afgaranay waxaana soo u jeedinay talooyinkeena ku aadan waxyaabaha la isku hayo doorashooyinka in xal laga gaaro wasaarana ballan wuxuu noo qaaday inuu qaybtiisa geysan doono haddana wax u socda ay tahay in xal laga gaaro runtii aad ugu faraxsanahay wuxuu noogu warramay si waafi ah oo aan dhihi karno si aan siyaasadaysnayn ra'iisul wasaaruhu waxa uu la qaatay waqti bulshada Garowe isagoo booqday goobaha shacabka ku fiidsadaan iyo ganacsiyada magaalada Garowe halkaas oo bulshada ku gacan qaaday si weyn loogu marxabeeyay socdaalkii ra'iisul wasaaraha ee Puntland oo 4 cisho qaatay ayaa ku soo ilaaday natiijooyin gudnigoodu yahay horumar iyo iskaashi marka hore waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa soo dhaweyntii qiimaha lahayd iyo sharafta lahayd ee uu soo jeediyay madaxweyne Saciid Dani madaxweynaha Puntland madaxweyne ku-xigeenka golihiisa wasiirada xildhibaanada aad ayay u mahadsan yihiin waxaan mar labaad iyagana rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan shacabka Puntland gaar ahaan shacabka ku nool caasimadda Garowe oo ah shacab xaqiiqdii meel weyn igaaga yaallo aniga ka ra'iisul wasaare ahaan waa shacab ii muujiyay soo dhaweyn iyo farxad iyo reereyn aadna ii soo dhaweeyay inta haddaan kaga gudbo mahad celinta qorshihii aan halkan u imid iyo howlihii aan u imid alxamdulillaah waa laba qaybood ay ka koobnaayeen mid ah howlihii xukuumadda ka waday sida caadiga ahaa iyo xiriiradii ka dhaxeeyay dowlad goboleedka Puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka ahaa si xoojintiisa ayaan halkan u imid wax badanna way noo qabsoomeen intii ugu badneedna way noo qabsoomeen haddii ahaan lahayd waxbarashada cadaaladda iyo dastuurka guulo badan oo waaweynna waa ka gaarnay alxamdulillaah taasna ilaahay ayaan mahad iska leh waxaana sidoo kale uga mahad celinayaa madaxweyne Dani oo kaalin xoog leh ka qaatay sidii howlahaas ay noogu fududaan lahaayeen qorshaha labaadna imid oo ahaa tii doorashada meel baan isla soo gaarnay waxna waa noo dhiban yihiin waxna bilaabay noo ahaayeen insha Allah mar dhowna wixii noo dhinaa waa dhameystiraynaa dadkana shacabkana waxaan leeyahay Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Puntland isdajiya qalbigiina khayr u sheega wala doogaysan ayaa la dacaroobin wax badan ayaana noo dhiman insha Allah wadadii dheereedna cagta waa saarnay dhammaan shacabka Soomaaliyeed galabnimadii 14 December ra'iisul wasaare Roble ayaa ka duulay Garowe isagoo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha ayaa Dhuusamareeb ka dhagax dhigay dhismaha iyo ballaarinta garoonka diyaaradaha ee Ugaasnoor farxad dhammaanteen waana qaybo ka mid ah horumarinta Galmudug oo aan ka geysanayno ka dawlad ahaan shacabka reer Galmudugna intaa iyo ka badan ayay naga mudan yihiin hadduu ilaahay raali ka noqdana mashaariic kale badan waa u soo wadnaa insha Allah hadduu waqtiga ilaahay uu nasiyo insha Allah marka Galmudug waxaan leeyahay ganacsatada reer Galmudug ee dalka ugu taajirsan waa inay qayb ka qaataan horumarinta Galmudug odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu kulamo gaargaar ah ra'iisul wasaaruhu kula yeeshay magaalada Dhuusamareeb isagoo ku booriyay inay isku kaashadaan nabadeynta iyo horumarinta Galmudug waxaana uu ballan qaaday in xukuumaddu deeq-bixiyaasha u shirin doonto horumarinta Galmudug waxaan kaloo rabaa hadduu ilaahay raali ka noqdo in aan ku casuumo beesha caalamka gaar ahaan deeq-bixiyaasha oo aan rabo inaan halkan ugu qabto shir oo aan ku qabanno halkan codsigina waa bilaabay anoo u dan leh codsigaasi in laga helo hadday ahaan lahayd gurmad degdega inay hesho dowlad goboleedka Galmudug iyo horumarinteedaba sidoo kale waxa uu ra'iisul wasaare Roble magaalada Dhuusamareeb ka daafuray qorshaha iyo naqshadda magaalada ra'iisul wasaare Roble iyo wafdigiisa ayaa socdaal dhulka uga baxay degmada Caabudwaaq waxa uu ku sii hakaday deegaanka Huurshe halkaas oo dadka ku dhaqani muujiyeen oo heelanaanta dawladnimada iyo doonistooda adeegyo horumarineed oo ra'iisul wasaaruhu u ballan qaaday si weyn ayaa ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa lagu soo dhaweeyay Caabudwaaq kumanaan dadweynaha ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee roob da'ay kuwaas oo marxabeeyay ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa Caabudwaaq waa
hoygii nabadda iyo tacliinta aad ayaan ugu faraxsanahay waan idinkaga cudur daarayaa wakhtiga aan idinka soo daahnay laakiin waxaad ii muujiseen soo dhoweyn aad iyo aad u sarraysa waxaan kaloo idinkaga mahad celinayaa horeyna aan u ogaa waddiniyaddiinna waxaan leeyahay hantiyey macaan waan midaan maasha allah ra-iisul wasaare Roble oo kormeeray garoonka diyaaradaha ee Cabudwaaq ayaa ku dhawaaqay in dawladdu ay $200,000 uga qayb qaadanayso wajiga labaad ee dhismaha garoonka diyaaradaha Cabudwaaq oo muhiimad weyn u leh Galmudug iyo guud ahaan dalka. maanta waxaa farxad ii ah taariikhdayda markii ugu horreysay inaan imaado degmada Cabudwaaq oo aan soo booqdo airport aad iyo aad u ballaaran oo aad arki doontaan sida loo sameeyey xaqiiqdii oo ah si farsamo heer sare ah ayna isku tashteen dadkii deganaa kana soo jeedeen degmada Cabudwaaq waxaan leeyahay biyo sacbahada looga dhargaa ganacsatada Cabudwaaq ganacsatada Galmudug waa inay u soo jeestaan siday gobolkoodii u horumarin lahaayeen gaar ahaan waxaan leeyahay dadka deegaanka ganacsatada oo meel kasta ay joogaanba sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan kaga codsanayaa inay ugu soo jawaabaan baahidan taagan oo nuska ah ay marayso garoonkan Cabudwaaq ee diyaaradaha khayladaan ayaa soo gaartay kumana soo talagelin laakiin hadda waxaan rabaa inaan hortiina ka caddeeyo inaan qayb ka geysanayo tabaruca garoonkan diyaaradaha ee degmada Cabudwaaq kaasoo ah $200,000 waxa uu ra-iisul wasaaruhu booqday farca jaamacadda ummadda ee magaalada Cabudwaaq halkaas oo mar kale carabka ku adkeeyay mudnaanta dawladdu siinayso tacliinta iyo jaamacadda ummadda oo isagu ka baxay 30 sano ka hor ra-iisul wasaare Roble intii aanu Cabudwaaq uga ambabixin dhanka Cadaado waxa uu booqday hoyga dhaqanka ee magaalada halkaas oo kula kulmay odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo uu ka dhageystay talooyin ugana warbixiyay xaaladda guud ee dalka iyo hadafyada xukuumaddu xaqiijinayso inta uu xafiiska joogo waxa uu ku baaqay in nabadda la iska kaashado lana baajiyo dhiig dambe oo ay iska daadiyaan dadka walaalaha ah ee Galmudug wada degan halkani waa Cadaado waa magaaladii saddexaad ee Galmudug oo ra-iisul wasaaruhu tago isagoo safar dhulka uga yimid Cabudwaaq soo dhaweyn diiran kadib waxa uu ra-iisul wasaaruhu bilaabay kulamadiisa qaybaha kala duwan ee bulshada Cadaado waxay u ahayd xarunta ku meel gaarka ah ee Galmudug halkan ayaa lagu doortay madaxweynayaal Galmudug soo maray iyo mudanayaasha baarlamaanka federaalka Galmudug ku matala hal habeen oo halkan ku nagaaday waxa uu kala hadlay doorashada nabadgelyada horumarinta adeegyada bulshada iyo dib u heshiisiinta oo ahaa ubuucda kulamadii ra-iisul wasaaruhu la yeeshay reer Cadaado waxa uu dhex lugeeyay magaalada goobaha bulshadu ku fiidsato iyo ganacsiyada magaalada isagoo la sheekaysta dhalinyarada ra-iisul wasaaraha ayaa dhismaha wadada laamiga ee Cadaado ugu deeqay $200,000 isagoo maamulka iyo dhalinyarada magaalada uga mahad celiyay dadaalka horumarinta kaabayaasha Cadaado runtii farxad ay maanta ii tahay in aan arko hawl bilaaw ee reer Cadaado ay qabsadeen oo ah mashruucyadii ama sidewalk meeshii wixii la jiray wadadina ay hadda bilaaw u tahay oo ay rabaan in wax laga saacido waa shaqo xawli leh oo ay bilaabeen reer Cadaado una baahan gacan qabad ay ka helaan dawladda dhexe ee federaalka ah insha Allah waa dadaalaynaa wax badan oo isku dayaynaa dib ayaan ugu noqonayaa laakiin hadda waxaan rabaa inaan hortiina ka caddeeyo insha Allah inaan idinku tabarucayo $200,000 wadadan haddii Ilaahay raali ka noqdo idinkana waxaa la idinka rabaa inaad inta kale contributionka guryahan quruxda badan bakhaaradan oo reer Cadaado oo aan halkan uga jeedo inay iyagana ka ururiyaan canshuurtii ayna geliyaan wadadoodii hadda waxa uu ra-iisul wasaaruhu u dhaqaaqay dhanka Gaalkacyo oo uu soo afmeerayo socdaalkiisa Puntland iyo Galmudug oo galay maalintii 8aad waxa uu sii maray deegaano iyo tuulooyin dhowr ah oo badankood uu ku hakaday si diirana loogu soo dhaweeyay boqolaal dadweynaha ayaa safnaa jidadka si ay u soo dhaweeyaan ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa Gallinsoor Dagaari Bandiiradle iyo deegaano kale ayuu sii maray ra-iisul wasaare Roble halkaas oo ka dhagax dhigay mashaariic horumarineed kuwa kalena ballan qaaday ra-iisul wasaaraheena qaaliga aanu jecelnahay injineerkeena
maxamed xuseen rooble waxaanu ku niri markaa sayidkii amranaayow saajicii afrikaankow madasha kaan ka sugaynow ardadii siinka diraysay subcinaysa qur-aanka soomaalidii gandisoor saqiid iyo kabiirba ayakoo oon kala soocan lahayn salaan aad u wanaagsan satrigeeniyo laabta kaaga soo go'day saafka sahal nooga guddoon intii uu ku jiray socdaalkiisa gaalkacyo ku wajahan waxa uu kolonyada u hakiyey inuu xalwaraysto bulshada miyiga ku nool sida wiilashan xoolo dhaqatada ah oo iyagoo baraadla ku baraarugay ra'iisul wasaare Rooble oo u soo degay kulankooda waqti kooban ayuu la qaatay isagoo ka wareystay xaalkooda iyo waxa ay ku taamayaan waxaana uu macsalaameeyay iyagoo faraxsan gabaldhici Jimcaad December 18 ayuu ra'iisul wasaare Rooble iyo wafdigiisa soo gaareen magaalada Gaalkacyo oo si weyn looga sugayay nasiib darro fal argagixisadu ka geysteen garoon uu bulshada kula hadli lahaa ayay ku geeriyoodeen saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin kale oo qaranka micno weyn ugu fadhiyay dhacdadaas foosho xumi kama joojin ra'iisul wasaaraha dhamaystirka socdaalkiisa Gaalkacyo ee ugu guurgalayay xaaladda guud waxa uu ka tacsiiyay geerida halyeeyada qaranka ee ku shahiiday qaraxa argagixisada waxa uu ka qayb galay aaskooda oo uu ka jeediyay hadal qiiriyo qiimo leh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa maalin madow oo mugdi ah oo aan ku weynay rag halyeeye ah oo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ahaa gacan xaq daranna ay ku dishay insha Allah intan noolahay inta iga dambaysaba waxaan leeyahay marnaba kama harayno inaan u aarno walaalaha iyaga ee halkan ku shahiiday maanta adawgaas banaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed kana hor yimid diinta kana hor yimid xaqa iyagana insha Allah gacanteena ayaan ku suulin doonaa markastana xaqa ayaa dambeyn doona xaqa ayaa guuleysto hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idmo waxaana uu sii waday kulamadii qeybaha kala duwan ee bulshada Gaalkacyo oo uu gabagabadii kula dardaarmay inay u midoobaan la dagaalanka argagixisada iyo nabadgelyada deegaanadooda sidaas waxa ku soo ilaaday safaradii uu ra'iisul wasaaraha dalku ku maray 3 dawlad goboleedyada dalka qorshihiisuna waa inuu dhawaan booqdo dawlad goboleedyada uu soo wali ku gaarin socdaalkiisa Samadoon